واتهاي لقى هذا وما سنتها مركلة دنك والباهنت مركلة قصوته دنك جيلين كوكلة أفلام توكلة وحجر فيلم عن سماء جرو وعي جلين أو بشد رنتي آد وقدمي ضد بدن أي نوع أمانين أنا يتيم كي دنك جلست في المدى رتم لك هو ده حربا جيلين كالصومالي ده جيلين كدتيو كل إنا واحد يفتميو وحركة سا في المدى أنت بدن هذا جيلين كدتك الصومالي ده آد وبدت وحركة سا يوتيوب مركش رواية هبل رواية قيانة دمر رواية دقرت دمر وحياة بدن عركسا لكن انت بدن dhalinyarada wax jilo ma fiiriyaan filimkan muxuu ka bedeli karaa bulshada way iska jilaan oo kaliya tusaale waxa arkaysaa film atooraha oo iska qosolay meeshii la roo emotionally waxa laga yaabaa in xaaskiisa dhibaato gaarta ama walaalkiisa wax lagu sameeyay meeshii la roo inuu murugoodo iska qosolay inta badan scriptyada anaga hadaan Soomaalina filimada ma qorno caalamka wax bila script ya qofka ma duubo سكريبت كانوا حكاسة عدينا يا قرار كفيلم كانوا حكاسة عدينا يا فيلم كأننا كده بحين وهذا الله فيلم كلا قطر جل أوكلي أكو هذا الشيء حتى تصالح فيلم يعني أديك سميني إنها هدي أوصل قرنين وحلاقي وحياة بدنا مناسب عن إهين إنها كهذا وفيلم كأن الله قطر جلين سلام مركا أنا قصدي فيلم كأيات دمايو أو دنك الآذايو مركا دنك الجلين ك سومالي الآذي هذا وحوجشة dad badan waxa jira hadda caalamka ka gadmay sida dhalinyarada jishay Captain Phillips oo kale waxaan qayb ka ahaa film la yiraahdo What oo dabcan wadanka lagu jilay oo Hollywood ka iska lahaayeen filmkaas oo qisadiisu ahayd in dhalinyaro ah oo mandheero bas ka soo waday isla markaana baskaas ay dhexda u galayaan al-shabaab isla markaana ay u kala saarayaan dadka islaamka dadka gaalada asaate ninkaas uu ku dhiiranayo inuu badbaadiyo dadka gaalada ahaa isagoo aan u kala soo celin diin marka filmkaas waxyaabo badan oo marka hore aflaanta aan ka fahansaneyn ayaan ka bartay oo ay kamid tahay in wax marka lagu celceliyo ay ka soo baxayaan wax qurux badan waxaan xasuustaa in 12 subaxnimo intana la kiciyo oo aan aadna meesha filmka ku soo duubi lahayn la soo celiyo 12 kale waxaan duubaynaa ay tahay wax ka yar hal daqiiqo oo ku dhawaad toddobaad halkaas daqiiqo aan duubayn oo mar walba la kicinayna la soo celinayo sifa loo helo kilibka ugu mudnaa ee la qaadan karo markii hore aan waxaan sameyn jiray waxa laga yaabaa film 30 daqiiqo ama hal saac soconaya inaan hal maalin ku dhameeyo ana u fiirinaynin tayada filmka laga yaabaa qisada filmka inay qurux badan tahay ee fiican tahay balse isboobsiis iyo waxaan inaan isla markii soo saaray igu jirtay jilinka marka la dhaho afar dhinac laga fiiriyaa dhanka duubista number 1 waaye dhanka codka sidoo kale goobta lagu jilayo iyo qisada filmka tusaale waxa arkaysaa film qisadiisa ay tahay actorka inuu yahay faqiir oo nolol adag ku jiro waxa arkaysaa Soomaalida in anaga Soomaali ahaan aan sameynayno filmka qofkii faqiirka ah aan geenayno guri qurux badan oo leeyahay qofkan faqiir waay marka qofka daawanaya kama gadmanayso sababtoo ah waxa la rabaa wax uu qofkan ka sheekeynayo ama qisada qofkan in dadka kale ay jiraan alla ilaahay qisada qofkan wayba ku dhacday oo xitaa u yiraahdo filmkan inaba caadi maahan marka codka waxa arkaysaa film la duubay codkiisana eber uu yahay sababtoo filmka wax lagu daawado waa cod hadduu filmka codkiisa uusan ahayn cod basically oo si qurux badan loo duubay waxyaabaha waad ku bartay waa ka soo dhacay haddii aan ku laabto qofkana wuxuu u qaabilsan yahay dhanka codka oo kaliya qofka dhanka make up-ka u qaabilsan waxa arkaysaa ku dhawaad dad 80 qof ah oo filmkaas iskala shaqeynayo oo qofba meel u xilsaaran yahay haddii ookiyaalaha uu qofka uu watay filmka uu ku jilayay oo maalinta meel iska soo dhigay maalinta dambe oo haddana ookiyaal la imaado waa la celinaa qofkaas inuu ookiyaalihi soo qaato waa sababtoo lama ogolo wuxuu marka hore filmka ku jilayay in wax ka baxsan uu sameeyo marka dhanka jilinka aniga dhanka filmada aan sameeyo waxa kamid ah film la yiraahdo Qiyaano Dumar oo 2014 dhamaadkeeda aan sameeyay filmkaas qisadiisa waxay ahayd runtii waxay ka turjumaysay nafsiga dhibaatada uu leeyahay wiil dhalinyaro ah isla markaana shaqo iska haysto oo meel shaqaale ka ah asaga aan shaqada lahayn laakiin lacag yar ku shaqeeyo ayaa gabar jeclaaday gabadha uu jecel yahayna wiil kale ay sii jeclada ayadana laakiin uma aysan sheegi jirin waxa dhacday wiilkan in habeen walba ay gabadha tiraado casho ii kan oo isagan cashada u keeno jaceelka uu gabadhan u qabo iyo inuu nolol la wadaagay tahay mar walba uu ku soo hadal qaado arrimo guur waxay leedahay waxba si waxa dhacday in wiilka waxa jir wiil kale ay saaxiib yihiin laakiin isma ogo wiilka kale gabadha jecesha waa ninkan saaxiibkiis waxa dhacday in
dhalinyarada waa aragtaa inta badan marar qaar qofba waxbay ka sheekaystaan waxaa arkaysa dhalinyaro isugu baxdo ciyaaro bas ka sheekaysto iyo dhalinyaro isugu baxdo arrimo dumar bas ka sheekaysto iyo dhalinyaro siyaasad ka sheekaysto marka labada nin saaxiibada ah inta badan dumarka maysa sheekaysan jirin maalin maamaha ka mid ah ninkan kale wuxuu dhahay inaan guursadaa raba nin maa dumaashida ibartidu u dhahay nin dhan oo aan saaxiibana waqti badan saaxiibayn hata haddaaba guursa rabtid magaceeda wuxuu dhahay Sabrina Allah sigiska deganta oo Sabrin oo sigiska degan aniga gabar Sabrina aan la sheekaysta sigiska degan macquul ma aha gabadha habeen walba casha u geeya in is guursanaa ku balansanaa si uu dhaqsiima gabadha ku sheegay laakiin casha ma kariso dhahay ayada aan habeen walba casha isiiso okay waaya sabirkeedu sawirkoodu tusaya halkaas uu saaxiibka ka garanaya makaanikan in hal gabar isla shukaansadaan noo waxaan suurtagal ma aanu dhahay gabadhan ana la sheekaysta adna wala sheekaysata waxaan ii sheegtay habeen walba in aad casha u geeyso ana habeen walba xaafadeedan ka soo casheeyaa okay waaya si cadaan ah habeenkii marka cashada kiisid wuxuu leeyahay soo waa imaanaya xaafada marka adii baxdi kadib anigu soo wacay marka cashada cunay ii imo sidii dhacayso inuu markii dambe soo laabto wiilkii uu arkay ninkan gabadhii la casheenayo marka sida filimka wiilkaas dhalinyarada ah markuu dhacdaan ay ku dhacday anigu ii imaanaya oo filimka door waxaan ku jilayaa nin naaga badan ah oo marka hal qof bis aan la sheekeysanin marka waxa dhacday in wiilkii kale markuu ninkan ka tagay gabadhii u dhawaaqay khiyaantay kii kalena uu yiraahday gabadh ay jeclad saaxiibkiisa u gashay ayaa ii galaysaa inuu kala wad halkaas gabadhii ku soo dhacday meel cidla ah hadhowna ee ogaatay jacaylkii uu qabo wiilkii hore inuu ahaa mid xaqiiqo ah markaas soo garowsatay inay jacayl u qaado marka filimkaas oo kale dad badan aa daawaday oo hadda milyan ku dhow dabcan YouTube badan aan soo geliyay sidoo kale waxa jira filim kale oo Ambula la yiraahdo filim kale oo la yiraahdo Lugoyo filim badan aan sameeyay jiro marka jilinka qofku waa inuu markuu wax jilay iska dhiga qofkii uu jilay oo kale tusaale adaa filimka lagu dhiibay adaa mid qofkii qisada ku dhacday waa inaad ka turjumi kartid qofkii ee qisada ku dhacdo oo kale marka jilinka dhalinyarada hadda wax jilayso inta badan waxaan ku boorin lahaa waa la bartaa jilinka dadna hoobkooda way ku dhashaanba qof waxa arkaysaa isleedahay qofkan asir ku dhacday qisada filimka dhan qaabku u jilaayo oo hinay tahay farxadeed tahay ka dareemis inuu filimka ka gadaayo marka jilinka waxa dhigay dhalinyarada aad u dadaalayaan inay wax jilaan aad baa u arkaa marka in ay xoog saaraan ee bartaan qaabka wax loo jiro